Welcome to The Princess and the Pea. This is a bilingual audiobook, told in both English and Somali, making it a wonderful way for families to learn and share two languages together. While you listen to this audio, remember that you can also follow along with the paperback version. Having the physical book in your hands is a fantastic way to look at the beautiful illustrations while listening to the story. To find the book for sale online, you can simply scan the QR code provided in your materials or visit our website at somali4kids.com. Kusoo dhawaada sheekada Amiiraddii iyo Digirtii. Tani waa buug maqal ah oo ku qoritan laba luqadood, English iyo Somali, taas oo u sahlaysa ehelada inay si wada jir ah uga bartaan labada luqadood. Maadaama aad dhegaysanayso codkan, maanka ku hay inaad sidoo kale raaci karto buugga daabacan. Inaad buugga gacanta ku hayso waa dhanka ugu wanaagsan oo aad ku eegi karto sawirrada quruxda badan adoo dhegaysanaya sheekada. Si aad buugga khadka tooska ah ugu iibsato, waxaad si fudud u skaan garayn kartaa koodka qarka ee lagu reebay ama ka booqo website-kayaga somali4kids.com. Finally, we would really appreciate it if you could leave a review on Amazon. Reviews are the key to the survival of our organization and help us keep creating stories for your children. And now, let's begin the story. Ugu dambayntii aad baan kugu mahadnaqaynaa haddii aad faalo, review, u soo dhiibto Amazon. Faalooyinku waa furaha noolaanshaha ururkayaga waxayna nagu caawiyaan inaan sii wadno samaynta sheekooyinka carruurtaada. Haddaba aan bilowno sheekada. Once upon a time, there was a prince who wanted to marry a real princess. He traveled across the countries of the world. He saw many beautiful princesses, but he couldn't tell which ones were real and which were not. The prince returned home to his parents' house. Beri waxaa jiray amiir rabay inuu guursado amiirad run ah. Waddamada dunida ayuu ku soo wareegay. Wuxuu arkay amiirado badan oo qurux leh, laakiin wuxuu kala garan waayay mid run ah iyo mid been ah. Amiirkii wuxuu ku soo noqday gurigii wasaladiisa. That night it rained a lot. There was a loud knock on the door. The king, the prince's father, opened the door. Habeenkaa roob badan ayaa daay. Albaabka ayaa xoog loo garaacay. Boqorkii amiirka aabahii ahaa ayaa furay albaabka. At the door stood a real princess who was very wet. "Come in from the rain and dry yourself," said the king. "Stay here tonight," said the queen. "You can't travel anywhere in this rain." Waxaa taagnayd kadinka amiirad run ah oo soo qoyday. Ka soo gal roobka oo isqalaji, ayuu yidhi boqorkii. Roobkan dhexdiisa ma socon kartid ee caawa halkan joog, ayay boqoradu ku tidhi amiirada. The queen had an idea of how to find out if she was a real princess. Waxay ka fikirtay boqoradu si ay u ogaato inay amiirad run ah tahay. The prince's mother, the queen, ran to prepare a room for the princess to sleep in. She laid a small pea at the bottom of the bed and covered it with 20 mattresses. Then she put 20 blankets on top of that. "Only a real princess would feel anything through all those things," said the queen. Boqoradii amiirka hooyadii ahayd ayaa carartay oo meel ay seexato ayay u diyaarisay. Hal digir yar ah ayay sariirta saartay. 20 furaashna dusha ayay ka saartay. Kadibna 20 buste ayay dul saartay. Amiirad run ah ayuun baa ogaan in wax ka hooseeyaan intaas oo shay, ayay boqoradu tidhi. The princess was tired and slept on the bed until morning. Amiiradu way daalanayd oo sariirtii ayay ku seexatay ilaa subaxnimadii dambe. In the morning when she woke up, the queen asked her, "How was your sleep last night? Were you able to sleep?" "No, last night I didn't get a wink of sleep, something was in the bed. I couldn't sleep," replied the girl. That's how the queen found out that the princess was real. Her son was very happy to hear the news.
Subaxnimadii markay amiiradii soo toostay ayay boqoradii ku tidhi ka waran hurdadii xalay. Ma seexan kartay? Maya, xalay il iyo baal isumaan keenin oo wax baa sariirta ku jiray. Waan seexan kari waayey ayay inantii ugu jawaabtay. Boqoradii sidaas ayay ku ogaatay inay amiirad run ah tahay. Inankeedii aad ayuu ugu farxay warka. The prince asked her father for her hand in marriage. They had a huge, amazing wedding. The pea was put in a museum. It can still be seen there as far as I know unless someone has taken it. Aabaheed ayuu weydiistay. Aroos weyn oo cajiib ah ayaa loo dhigay. Digirkiina waxaa la dhigay matxafka oo waa loo daawasho tagaa weli ogaalkay haddaan la qaadan. We hope you and your child enjoyed this story. To make the most of this journey, you can buy the printed version of this book. Having the physical book allows you to read along with your child and look at the pictures together. At the end of the book, you will find fun comprehension questions and games in both Somali and English. These activities are designed to help your child learn and practice both languages. You can find our books at somaliforkids.com or by searching for us on Amazon. Finally, please consider leaving us a review. Reviews are vital for the survival of our organization and help us continue our work. You can leave a review by scanning the QR code in the book or by finding us on Amazon. Waxaan rajaynaynaa inay adiga iyo ilmahaaguba aad ugu bogateen sheekadan. Si aad sheekada si fiican ugu dhex gashid, waxaad iibsan kartaa buugga dhabta ah. Inaad haysato buugga gacanta lagu hayo waxay kuu saamaxaysaa inaad ilmahaaga la akhrido, sawiradana aad isla eegtaan. Dhammaadka buugga waxaad ku sidi doontaa su'aalo iyo ciyaaro aad u xiiso badan oo ku qoran Soomaali iyo Ingiriis. Waxyaalahan waxay ilmahaaga ka caawinayaan inay labada luqadoodba si dib yar u bartaan. Buugaagtayada waxaad ka heli kartaa somaliforkids.com ama ka raadi Amazon. Ugu dambayn, fadlan noo reeb faalo, review. Faalooyinkiinu waxay muhiim u yihiin jiritaanka ururkayaga, waxayna naga caawinayaan inaynu shaqada sii wadno. Waxaad faalada ku reebi kartaa adigoo sawiraya qircodka buugga ku jira ama nooga raadi Amazon. Akhris wanaagsan.